nabarka meelaha xubnaha taranka. Tani waxay calaamad u noqon kartaa fayraska herpes. Ma ku xanuunayaan meelaha xubinta taranka ama afka? Haddii ay sidaas tahay, waxa ay noqon kartaa calaamad ka mid ah fayraska herpes simplex, kaas oo keena nabaro qabow ama finan afka ama xubinta taranka. Iyadoo aan daawo loo helin herpes, daawooyinka fayraska ka hortaga iyo daaweynta guriga ayaa si weyn u dhimi kara calaamadaha. Herpes xubinta taranka waa infekshanka galmada lagu kala qaado STI. Herpeska xubinta taranka waxaa caadi ahaan lagu wadaagaa galmada siilka, afka ama dabada. Mid ka mid ah 5 dumar ah ee dadoodu u dhaxayso 4 ilaa 49 ayaa qabta herpes xubinta taranka. Si kastaba ha noqotee, waxaad qaadan kartaa daawo si aad uga hortagto dilaaca oo aad u yarayso fursadda aad ugu gudbiso herpes xubinta taranka lamaanahaaga. Ku dhowaad 6 toddobo dadka caalamka ee dadoodu ka yar tahay 50 sano waxay halis ugu jiraan inay qaadaan herpes afka ama xubinta taranka. Iyadoo hal ay aad ugu badan tahay fayraska herpes, qiyaastii 1/3 dadka dadoodu u dhaxayso 15 ilaa 49 waxay u badan tahay inay qaadaan lab. Sababaha herpes xubinta taranka. Sida laga soo xigtay Dar Artana Dawan Bajaj, dhakhtarka haweenka, dhakhtarka dhalmada iyo khabiirka Nurture Alinia. Waxyaabaha halista ah ee caadiga ah waxaa ka mid ah xiriir galmo oo lala yeesho qof qaba hal ama labo galmada afka, futada ama siilka, iyada oo aan lahayn ilaalin xanibaad ah, kondhom, dam ilkeed, lamaane badan oo galmo ah, lamaane galmo aan la garanayn, iyo joogitaanka ama taariikhda mid kale oo galmada lagu kala qaado ama dhiig ka dhashay caabo. Dumarku waxay aad ugu dhow yihiin inay ka qaadaan herpeska xubinta taranka ee lamaanahooda in ka badan. Cilmi baadhisyo ku saabsan lamaanayaasha heterosexualka iyo hal xaas oo leh calaamado soo noqnoqda xubinta taranka labo saaxiibka isha ayaa muujiyey heerka gudbinta sanadlaha ah ee 1.7 lamaanayaasha ilaha lab ah iyo 3.4 lamaanaha leh lamaane dhadig ah. Ogaanshaha herpes taranka. Dar Sunita Kaboor, agaasimaha iyo madaxa shaybaadhka Itixray iyo Scan Alinic Birtle, waxa uu yidhi ogaanshaha hore ee fayraska herpes simplex iyada oo loo marayo baadhista sida baadhista dhaqanka fayraska herpes bear, baadhitaanada antibody iyo antigen tests waxa ay si weyn u wanaajin karaan natiijada bukaanka. Nolosha. Tijaabada dhaqanka fayraska ee lagu ogaanayo fayraska herpes simplex waxay ku lug leedahay ururinta unugyada nabar ama nabar cusub oo lagu korayo shaybaa. Habkani wuxuu ogolaanayaa in la go'aamiyo haddii uu jiro. Iyadoo aad u gaar ah, baaritaankani wuxuu waxtar u leeyahay marka la sameeyo inta lagu jiro marxaladaha hore ee caabuqa firfircoon marka fayrasku si firfircoon u soo celinay. Tijaabada beer waa qalab muhiim u ah aqoonsiga maadada hidde-sidaha DNA ee muuna. Baaritaankani waa mid xasaasi ah oo lagu ogaan karo xitaa qadar daqiiqado ah oo DNA ah. Intaa waxaa dheer, baaritaanada dhiigga ee unugyada difaaca jirka ee waxay aqoonsadaan unugyada difaaca gaarka ah ee uu soo saaro habka difaaca si looga jawaabo caabuq. Baaritaankani wuxuu kala saari karaa labada nooc ee waaweyn ee hal unugyada difaaca jirka waxay caadi ahaan la xiriiraan herpes afka ah, iyo labo unugyada difaaca jirka ayaa ugu horrayntii la xiriira herpes taranka. Tijaabooyin antigenka ee herpes waxay aqoonsadaan antigens gaar ah oo ka yimaada nabar ama naba. Dhammaan baaritaanada beer iyo ogaanshaha ka hortagga jirka ayaa inta badan la isticmaala. Iyada 4 talooyin si looga hortago herpes. Nooc kasta oo ka mid ah galmada xubinta taranka, futada ama afka xubinta taranka ee aan la ilaalin ayaa faafin kara herpes. Habka kaliya ee waxtarka leh ee looga hortagi karo herpes waa ka reebis ama isticmaalka joogtada ah iyo isticmaalka kondhomka. Si kastaba ha ahaatee, xitaa kondhomyadu maaha khatar la'aan, sababtoo ah nabaradu waxay ka soo bixi karaan meel ka baxsan gobolka la ilaali. Inta lagu jiro dilaaca, khatarta gudbinta ayaa aad u saraysa. Khubaradu waxa ay ku talinayaan in dadku ay iska ilaaliyaan galmada marka ay calaamaduhu qabaan oo ay isticmaalaan kondhomyada inta u dhaxaysa cudurrada dilaaca. Sababtoo ah herpeska afka waxaa lagu kala qaadaa xubnaha taranka marka afka la taabto. Waxaa fiican inaad iska ilaaliso galmada afka haddii uu jiro nabar qabo. Dumarku waxaa laga yaabaa inay xubinta taranka ku daboolaan biyo-xireenno ilko ah ama balastig ah si ay lamaanahoodu uga ilaaliyaan inay la kulmaan dheecaanada jidhka xilliga galmada afka. Lesbiyanka ama naagaha labada jinsiba waa in ay ogaadaan in fayraska herpes uu fidi karo marka nabarka haweenaydu uu taabto xubka afka ama siilka ee lamaanaheeda. Haddii uu dilaacay, ka ilaali aagga ay dhibaatadu saamaysay nadiif oo engegan si aad uga fogaato in caabuqyada labaad ay dhacaa. Iska ilaali taabashada nabarrada oo dhaq gacmahaaga kadib marka aad la xiriirta. Iska ilaali xidhiidhka galmo ilaa nabrahu ay si buuxda u bogsanayaan.
nabaro ayaa ka soo baxay oo maqaar cusub ka koray nabarada. Dadka leh calaamadaha ugu horreeya ee herbes dilaaca ama nabaro muuqda waa inaysan galmo samayn ilaa ay nabarku si buuxda u bogsadaa. Iska ilaali inaad wadaagto tuwaalada cadayga, bushimaha ama lipstick si aad uga hortagto inay fidiyaan nabarada. Haddii aad la kulanto cudurro dilaaca oo soo noqnoqda, daawada fayraska maalinlaha ah waxay yarayn kartaa kacitaanka ka gudbinta lamaanahaaga. Daryeelka caafimaadkaaga guud waxa kale oo ay kaa caawin kartaa in la yareeyo dilaaca. Cun cunto isku dheelitiran, hel hurdo kugu filan si aad u taageerto nidaamka difaacaaga oo u maarayso walbahaarka maadaama ay daciifin karto difaaca jidhkaaga. Naftaada ka ilaali xaaladaha cimilada adag sida qoraxda, dabaysha, kulaylka aadka u daran, ama qabowga adoo isticmaalaya muraayada qoraxda iyo dibnaha. Intaa waxaa dheer kala tasho bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga wixii ku saabsan daawooyinka fayraska ka hortagga si ay u caawiyaan in dilaaca la xakameeyo. Daawooyinka xanuunka naadirka ah waxay muujinayaan ballanqaadka daaweynta fayraska herbes.